السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to Juba Institute of Professionals. وكورسات البرينتمنت English course وأنا بوقي 4000 session English Words book 1 lesson 25 و10 كنا بيج سديتنات بنكمل معنا. أنا جواري وحين blood وديك. Blood is the red liquid وضرره جدودن in your body أجرك أكجرو. I cut my finger فرط أيام اسكجاحي and got blood on my shirt ديك بيجي هلال. I cut my finger فرط أيام سجري and got blood on my shirt dhiig ayaa shaatiga iga halaabay erey kale waxay ban waa gubid. To burn something shay inaad gubto is to set it on fire waa inaad dab qabadsiiso. To set it on fire inaad dab qabadsiiso set it on fire gub iyo ban waa isku mid. Marka waxay to burn something is to set it on fire inaad gubto wey. I burned some wood waxaan gubay alwaxyo in the campfire dabkii nooga shidna camp meel la dego xero camal la dego wey. erey kale marayna waxa cell hadaad maqasho waxa la dhahaa waa qol yar oo xabsiga ka mid ah. Cell qolalka xabsiga ayaa waxa la dhahaa cell. A cell is a small room waa qol yar where a person is locked in halkaas oo qofka lagu xiro. Xabsiga wuxuu leeyahay qolalka xabsiga waxa la cell. The jail cell qolalka xabsiga was very small aad buu yaraa. Marka jail waa jailka ama xabsiga guud way. Cell waa qolalka xabsiga. The jail cell was very small qolalka xabsiga aad buu yaraa. ereyga waxa weeyaan contain waxa la wax ku jiro. Contain waxa la shayga wax ku jiro. What does this box contain? Boxkan maxaa ku jiro kale. What does this box contain? Boxkan maxaa ku jiro. waxay kale noqotaa ereyga contain xakameeyna way noqotaa. marka the fire was contained dabka waa la xakameeyay oo kale. waxay kale noqotaa restrict macnaheedu way noqotaa inaad is xakameeyna way noqotaa. Contain yourself is xakameey oo kale. To contain something is to have it inside oo shay gudaha marka wax ku jiro. waxaa the mailboxku waxa warqadaha boostada meel lagu rido oo kartoon yar. The boxka kartoonka contain waxa ku jiray a letter warqad. Contained waxa ku dhex jiray a letter warqad. marka contain ku jirid waxa kale waxa ku dhex jiro waxay kale noqotaa xakameyn iyo mataqaana iyo is control labada way noqotaa. erey kale waxaan correct waa saxid. Correct waa saxida wax inaad saxdo ama sax. hadda waa adjective waa sifo. Correct sax. Verb markay tahayna waa isla saawun isbedel saas ma dhacay. Correction oo noun waa jirtaa. To be correct is to be right. To be correct waxa inay sax noqdaan is to be right oo inay sax yihiin yani wax markay run yihiin ya waxa la correct is to be right. All of my answers dhammaan jawaabahayda on the test ee imtixaanka waa correct sax bay ahayd. waa correct sax bay ahayd. erey kale marayna waxa crop waa dalaga la beertaan la beeraha waxa ka soo baxo waxa la crop. A crop is a food that farmer grows. Crop is food waa cuntada that a farmer grows qofka beeraleyda uu beerto. Wheat is a crop. qamadigu waa crop that is made into bread ee rootiga laga sameeyo. Wheat qamadiga is a crop waa dalag that is made into bread ee rootiga laga sameeyo. erey kale marayna waxa demand waa verb waa ficil hadda maanta waa dalab. demand maxaa dalbasho wax marka dalbato ama codsi marka si zaid u codsato waxa la demand waa dalbasho. To demand something is to say strongly waa inaad si adag u dhahdo that you want it inaad rabto. The workers shaqaalihii demanded waxay dalbadeen to be paid more money in lacag dheeriya la siiyo. marka demand waa dalbasho dalabna way noqotaa wax la rabana way noqotaa. To demand something is to say strongly waa inaad si adag u dhahdo that you want it wax inaad rabto. The workers demanded shaqaalihii waxay dalbadeen to be paid more money in lacag badan la siiyo. erey kale baa equal wax siman weey ama isla eg. To be equal is to be the same wax isku mid ah. Both students labada ardayba are equal in age xagga da'da way isla yihiin. Both students are equal in age xagga da'da way isla yihiin. erey kale maanta barayna waxaan feed waa quudin. Feed maxaa la quudin. To feed is to give food waa cunto siiso. Mother feeds hooyada waxay quudisaa my baby brother cunug walaalkayga ilmaha walaalkaya every day maalin kasta. My mother feeds hooyada waxay quudisaa my baby brother every day maalin kasta. erey kale waxay hole waa good way. A hole is an opening in something waa duleel ama god.
the man was going to jump ninka wuxuu ku booday into the hole in the ice godki ku yaalay barafka ayuu ku booday marka jump the man was going to jump ninka wuxuu ku boodi rabay into the hole in the ice hole godki in the ice ee barafka ku yaalay aad iyo aad baad mahadsantihiin fadlan casharada dhagaysta oo fahma oo exercise ka shaqeeya